waxay ahayd madal ballaadhan oo si heersaraa loo soo agaasimay taasi oo lagu shaacinayay 4 musharax oo u taagan jagada doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer iyo degmada Burco. Musharaxiinta munaasabadaasi lagu soo bandhigay oo kala ahaa Cabdi Salebaan Jaamac Bade, Yuusuf Ismaaciil Warsame iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo waliba Faysal Maxamed Faarax Laqana ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah UCID Injineer Faysal Cali Waraabe, mas'uuliyiin cuqaal waxgarad dhalinyaro haween kuwaasi oo dhammaantood taageerayaal u ahaa 4 musharax ee isku raaceen beelaha deegaanada ay ka soo jeedaan. Waxa munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka beelaha soo xulay musharaxiintaasi iyo marti sharaf kale kuwaasi oo bogaadiyay 4 musharax isla markaasina ku tilmaamay kuwa ka soo bixi kara mas'uuliyadda ay u istaageen. munaasabad aynu ku soo xulay labeentii iyo aqoon-yahankii maanta ma noqon doonaan xildhibaanadaanu soo xulay kuwa Hargeysa fadhiista ee waxay noqon doonaan kuwa inala qaybsada dhibka iyo waxtarka iyo horumarka hadda soo kordha. waa afar aqoon-yahan aad baan inamada u aqaanaa, afar aqoon-yahan weeye. xusbiga wax weyno waxay leeyihiin hooyo aabe. Somaliland xusbiga maanta u hooyadii aabbaaba ahi waa UCID. war wixii idinka xumaan jiray baa dadka ka xun markaa xildhibaanan noqotaan. waa garanaysaan maanta idinkoo baahihiibaa ogeydeen ha loo adeego dalka iyo dadkaba. ku boorinaya musharaxiinta maanta jooga haddii la ka dhigo inay guulaystaan kana dhiidhiyaan arrintaa inta badan soo jirtay oo sistamka ay wax ka beddelaan. tartanka iyo kaambeynku markuu bilaabmana waxaanu noqon doonnaa kuwa soo baxe ugu faraa badan, kuwa codaya ugu faraa badan, kuwa suga xildhibaanada ay dooranayaan. ilaahay ha ku guuleeyo oo ha ka noqdeen kuwa muraayad ka noqda xilalkaa aynu u soo doorannay. xusbiga iyo inamadaba waxa weeye kor ha loo soo qaado. beelweynta daahir faarax iyo gaashaanbuurteeda haddaannu nahay waxaan si mug leh iyo miisaan leh u soo doorannay 4 musharax ee halka ku qoran. guddoomiye si waa naga guddoomaysaa 4 musharax waa naga guddoomaysaa. waa 4 aanu isku raacnay, 4 aanu soo xulannay weeye, 4 aanu ka midaysannahay dhammaan weeye. la soo xulay dhul badan baa laga maqli doonaa musharaxiin weeyaan. nimankaa waxaan leeyahay iyagana ilaahay ha ku guuleeyo. waa 4 xildhibaan codkoodii way sitaan, saayidna way hayaan. xusbigaanu beelaha xusbiga ku deeqa codkaanu noqon doonnaa saayidka ku yaqaan. 4 nin ee la soo xulay ee maanta taagan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay ku guulaystaan. 4 musharax waa soo xusheen, waa soo sharafteen, madashii baa keenteen. haddaa codka siisaan wey dee tolkiin idin soo shaashaace haddii eebba guuroo yahay idinkana waa idiin sharaf, tolkana waa u sharaf. waxaan leeyahay ilaahay xilkaa laydiin soo saaray ha idinku guuleeyo. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya musharaxiinta aan ogahay inay noqon doonaan niman hogaamiya dalka si fiican hogaamin doona. qaar kalena ku soo socdaan waxaad dareemaysaa in burco xusbiga ay maanta taageersan tahay oo ay xusbiga tahay baad dareemaysaa. wuxuuday guulayso golayaasha ugu horee adaa xisbiyada dhammaan xakinkooda noqon. halkan isugu timi oo ay keeneen 4 musharax annana waa hambalyaynaynaa, aad iyo aad baannu u soo dhowaynaynaa. mar haddii laandheeri kugu soo biiray maanta xusbigaagii uu ku biirayna waxaan u malaynayaa hadduunbaa xusbigii shuushku ka kacayaayo dib dambe loo odhan maayo Faysal nambar 3 buu ku jiraa. aynu dooranaynaa inamadani waa inay noqotaa dadkani dad kaadharkooda u diyaara. annagaa bilownay geedkaanu beernaa ma qalalo. geesta kale musharaxiinta la soo xulay oo munaasabada ka hadlay waxay si qoto dheer uga warrameen qorshayaasha iyo waxyaabaha ay rabaan inay wax ka qabtaan haddii ay ku guulaystaan doorashooyinka isbarkane. waxaanu ku rajab qabnaa inaad insha Allah aad codkiina si dhaba noo siisaan oo sidaa maanta u soo baxdeen muuqataan insha Allah aad muuqataan. mahadnaq xagga beelaha daahir faarax iyo gaashaanbuurtiisa oo na soo xushay iyo taageerayaashan reeraha kale gobolka ka soo jeeda. aanu kollay inaan
hormood ka noqon doono waxyaalo badan oo dadku tegayo oo ugu horeeyo dan yarta oo dhalinyarada shaqo loo abuuro waxaa jira ilaa 30 wasaaradood wax ka badan baynu leenahay waxba hargeysay fadhiyaan caqli maaha in gobolada kale lagu shaqo laado marka waxaan ku ballan qaadaynaa wasaaradaha in gobolada kale qaar loo soo raro oo burco waliba caasimadda labaad kuwa waaweyn la keeno aad iyo aad idinka mahad celinaynaa waqtigiinna aadna siiseen ee ilaa iyo maanta aad dantiinna gaarka ah haddii ay hablaha tahay iyo hadday cuqaasha tahay aad noo hurteen ee ilaa iyo maanta aad noo fadhideen aad baannu idinka mahad celinaynaa markaa isbeddel baynu u baahannahay aniga waxay igu kallifay golaha deegaanka markaan arkay ciyaalka gobollada somalilan oo dhagxaan guudkeed ku ciyaaraysa kubadda shaqatagiga ma aha laakiin waxaan isleeyahay aqoon aan baranayo weliba heer jaamacadeed 12 sano oo arday aan wax ku baro iyo mid aan dan guud kaga shaqeeyo mooyaane aanan weligay intaan ku shaqo tagay bil mushaara ku qaadan ayaan isleeyahay xadhigga kaga jaro degmadaada iyo dadkaaga ugu shaqee si aad halkaa uga sii dalcdo ilaahay idinkii shaqatagiga ma aha nin mushaar u baahanna walaahi meehi iyo cadaaladda sidaa markay tahay ee maanta aad ku doorataan musharixiintiinnii ee aad ku soo baxdaan ee aad ku najaxdaan ha noqonnina dadkii martida ahaa ee weelkii wax lagu sideeyey daldalooliyey bilaahi calaykum doorashada 2022 markuu guddoomiyuhu soo taago sidaa imika ugu soo ururteen ugu codeeyo oo soo saara ugu dambeyntii xogayaha duulista ee xisbiga u ciiday Bashiir Xamari ayaa bogaadiyay 40 musharax waxaana uu madasha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga u ciiday Injineer Faysal Cali Waraabe kaasi oo sheegay in xisbiga u ciiday si rasmi ah u qaatay 40 musharax taanka loo raaciyo in maalinka codka aynu si wanaagsan ugu codeyno yaan la isdhiganin waxaan idin sheegaynaa inaanu xisbi ahaan idinka aqbalnay inaanu insha allahu tacaala aanu sharaxno 40 musharax waad ka aqbal waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inayna soo baxaan oo noqdaan qaar dalkooda iyo diintooda u hiiliyaan noqdaan inaa ka barayso ee soo soocay dhalinyaro saqafiina oo iimaan leh oo gurmad maxamed mataan gabalaax maxamed mooto sahan TV burco